بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا وحوي عاو بلعادها قفك دوكريون Kusoo dhawow fasiraadda riyooyinka. بلعاد وحوي وحيابها وسقد إيو قشنك إيو كدعو ودوينك مسبيها مرة أضا بلعاد كدعي هداد ريكو أركتid مشاكل أكي قد بيسيدي تلماميسا يعني وقير بدن بلعاد waxay kaloo tilmaamaysaa sixir hadduu qofkaas sixranaa inuu sixirkaa ka bogsanayo oo ka badbaadayo aragtida bulaacada macno kalena way tilmaamaysaa inuu qofkaa yahay qof mas-uuliyadiisana ka bixi kareenin qof ka baxsanayo ka cararayo mas-uuliyadihiisii waajibkii la saaray oo kale mitala gurigiisii oo kale waxyaabahaas oo kale guud ahaan ayaan uga hadlayaa rag iyo dumar ma kala qaadayo wixii kale hadhow qaaditaan u baahan gadaalaan ka sheegi doonaa qofka hadduu koriyooda bulaacad oo qashan ka buuxo way buuxdaa waa wasaq taasoo kale waxay tilmaamaysaa dad adiga kaa agdhadhow inayna qiimahaaga qadarinaynin yacni inaan ku qadarinaynin qiimahaaga aanan ogeyn mise aan ilaalinaynin mashaacirkaaga dareenkaaga qofka hadduu koriyooda biyaha bulaacadaha qaarkood biyay leeyihiin taa waxay tilmaamaysaa xoolo xaaraan ah qofka hadduu koriyooda cunug yar oo bulaacad ku dhacayo riyadaasoo kale qof had la wadaagin sharteeda rabbi ka magangal gabadha la qabo hadday koriyooda iyadoo nadiifinaysa bulaacad iyo aboosaneer maahan taa waxay tilmaamaysaa inay mashaakiliyi ciriiriyo caloolxumo dareemayso mise waxay dareemaysaa xanuun mise waxay dareemaysaa maseer gabadha la qabo hadday koriyooda iyadoo ku dhacday bulaacad taa waxay ka turjumaysaa macaasi dunuub mise mashaakilo nolosheeda yacni ay kusoo wajahantahay oo kale markaasoo kale istikfaar badan sameey mise daqooyin insha allah rabbi uu kaa badbaadinaa riidaa sharteeda qofka hadduu koriyooda asigoo ka baxsanayo biyaha oo bulaacada ayaa soo fatahday oo kale waad ka cararaysaa taa waxay tilmaamaysaa mashaakilo kaasoo afjarmaayo qofka hadduu koriyooda asoo ku dhacay bulaacadii asoona ugu tiragelin ayuu ku dhacay taana waxay tilmaamaysaa khiyaano dad kuu dhadhow aragtida biyaha bulaacada xoolo xaraan oo kelima tilmaamayso waxyaabo kaloo maxaramaad way tilmaamaysaa yacni waxyaabo kaloo rabbi naga xaramteeyey inaan ku dhaqaaqayno kale wacayaadu billaah laag noo saara noona sheergaray la wadaaga asxaabtiina